بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين maanta bal waxaynu eegaynaa casharkan baynu eegaynaa waxaynu eegaynaa sida loo sameeyo inagoo joogna sida loo sameeyo investment marka investment la sameynayo ee meherada lacagta lagu bilaabayo la gelinayo programka waxaad tegaysaa halkay ku taalo company markaad tagto waxaad tegaysaa make journal markaad halkaa tagto lacagta uu leeyahay mulkiiluhu leeyahay halkaasaad gelinaysaa account baynu sameynaynaa cashka ah 10,000 baa meheradan lagu bilaabayaa 10,000 ee lagu bilaabayo account baynu sameynaynaa cash on hand markaynu sameyno waxaynu gelinaynaa 10,000 buu haystaa ninkan wuxuu doonayaa meherad bilaabo 10,000 buu lacag haystaa 10,000 markuu haysto open balancegiisuna waxa weeyaan waa 10,000 open balancega uu haystaa waa 10,000 iyadana waad credit garanaysaa waa inay isleekaadaan mar kasta debit and credit must equal waa inay isleekaadaan 10,000 oo haysto ee cashka ah ayaa xaggana waxa weeyaan hantidiisa ah saasaan ku save gareynaynaa markaan save gareyno haddaynu tagno report memorized report balance sheet oo ah halka laga eego hantida taala shirkadda waxa weeyaan waad aragtaa cash on hand 10,000 buu haystaa waxaanu haystaa open balance EQ-ga hantida uu haystaa waa 10,000 haddaba waxaynu eegaynaa alaabtii inventory-ga ahaa ee kale sida loo soo dhoofinayo marka meherada la tiriyo alaabta waxaa lagu diyaarsanayaa raf ama waraaqo marba waxba dadku ay kusoo qortaan markay kusoo qortaan adaa soo habeynaya excel baad usoo rogaysaa excel markaad usoo rogto aad kusoo qorto halkan waxaa ku qoran customer list oo ah deynta shirkadda ka maqan deynta dadka kaga maqan oo ah 763,000 halkanna waxaa ku yaala vendor list oo ah dadka account payable-da ah ee lacagta ku leh shirkadda iyaguna waa 460 inventory-ga meesha yaala hantida meesha taalna waa 408 investment-igi oo 10,000 ee meesha lagu invest gareeyay markaas waxaan sameynaynaa inaynu soo dhoofino intaynu soo dhoofin waa inaynu halkan kusoo dhoofinayno mid kasta u salaxnaa markaynu soo dhoofinayno customerska waa inaan sii saxnaa qaybtaan kusoo dhoofinayno vendorka markaynu soo dhoofinayno waa inaan qaybta vendorka sii salaxnaa inventory-ga waa inaan sii salaxnaa marka waxaan tegaynaa halka customer center ay ku qoran tahay customer center oo waxa weeyaan saasa kugu soo baxaysa sheetkaas kugu soo baxay customer center ama halkan shaashada aad ka tegi kartaa si yar oo fudud oo adiga arka heat bay leedahay ciwaanka yar kor baa loo qaaday halkaas aad ku dhufanaysaa customer center markaad tagto waxa weeyaan excel baad kasoo dhoofinaysaa ama kasoo import garanaysaa alaabta ku jirta excel kii baad tegaysaa excel markaad tagto waxaad tegaysaa best from excel kasoo best garay markaad halkaa daaqada ku dhufto daaqadan baa kusoo baxaysa waxaad soo dhoofinaysaa halkaas aad ka dooranaysaa ma vendor baa ma inventory baa ma waxa weeyaan customers halkaasaad ka dooranaysaa ninka waxaan soo dhoofinaya customerska soo dhoofinaya customerska marka aan soo dhoofinaya inventory-ga halkaa waxaad aragtaan non inventory assembly inventory part halkan kuma jirto inventory-ga partiga waa anigii hore u soo dhigay waxa weeye marka la soo saxayo waxa la tagayaa edit baa la tagayaa edit marka la tago preference baa la tagayaa mid kale iga dhacday meel kale iga dhacday suga waxa la tagayaa edit baa la tagayaa edit marka la tago waxa la tagayaa preference marka la tago waxa la tagayaa halka taalo ay ku taalo baa la tagayaa item and inventory partiga ma saxsana halkaas aad ka saxaysaa inventory partiga markaad inventory partiga saxdo okay baad leedahay daaqadaha baa sixiraya markay sixiraan waxaad ka soo celinaysaa halkan qaybtan home baad ku dhufanaysaa home markaad ku dhufato aan weyneeyo waxa weeyaan halkii hore ku noqonaya customers waan ku dhufanayaa markaan customers ku dhufto waxaan tegayaa excelkii best from excel baan tegayaa markaan best from excel tago waxa weeyaan inventory-gii baan soo dhoofinayaa oo qaybka isoo galay meesha inventory partiga halkaasaan customize halkaasaa laga kala doortaa laga kala habeeya customize baad tegaysaa markaad customize tagtid subtotalka uma baahni coska waan u baahanay celebriska waxa u baahnay soo dhoofiya akoonadaas waad aragtaa halkaas waxa weeyaan inactive ay noqonaysaa kaamkan geeyna halkaas active ay noqonaysaa kaasna waa inactive marka akoonka waa khasab isaga ku siinaya ma dhilgelin kartid kaa kale laftigiisu waa default kaas waa default kaas waa iska saaraya kaas quantity totalka waan diisanaya quantity-gaasna waan diisanaya haddaba move up waa saad kala horeysa itemka waxaan ugu horeysanaya item name markaan qoro waxaan doonayaa quantity wixii markii waxaan doonayaa inuu cost ku bixiyo cost markuu bixiyo totalka kor baan qaadaya saddexdaasaan doonayaa sida ka muuqata excel sheet-ka ka muuqata waxaan doonayaa in itemka ugu horeeyo
inuu ugu horeeyo quantity-gu inuu ku xigo cost-ku. halkaas waa item name-ka weeyaan, hadaynu ku qorno waxa dhibaato ma laha item name. halkana waxa weeyaan quantity-ga tirada inta ka taala, halkaasna waa unit price-ka qiimaha la siinayo xabadiiba unit price, halkaasna waa totalki. qaabkaas aynu halkaa ugu diyaarsanay ayaynu doonaynaa aynu u diyaarsano halkeenan. marka okay baan siinaynaa, waxaynu item-kii baa ugu horeeya, quantity-ga wuxuu cost-kii baa ku xiga, total-ka ku xiga. akoonadan waa akoonadii khasabka ah isaga ayna siiyey. marka waxaan sameynaynaa waan soo dhoofinaynaa, waxaan highlight garaysanaynaa intaa, waxba totalka highlight garaynayno, totalka isaga inoo xidhayo iyo cookbook. okay baynu leenahay copy. markaan copy tagno barnaamijka ku noqono, markaan ku noqono halkaas aynu tagno daaqadan okay iska dheh, halkaas ayaynu ku paste garaynaa. markaan ku paste halkaas waa akoonkii talo lagu xisaabinayay income-ka, waa akoonkii sales-ka aan dooran jirnay. halkaa akoon sales ayaynu ka dooranaynaa, waa sales-ka waxa weeyaan haddaan qoro waa sales uu soo baxaya markiiba. halkan hore waynu ugu jiro akoon baan ku xidhanaynaa income. akoonada income-ka halkan ka eegana akoonka income-ka ayaan iska xidhanaynaa. akoonada income-ka ila waa income, waxaan income baan xisaabinaya account service and income kaasaan iska xidhanaynaa inagu. lacagtaas ayaynu ku dhacaysaa, kaasaynu ku xidhanaa akoon income baa loo baahan yahay in lagu xidho si hodhowto barafadaan iska looga arko. waayahay inventory waan soo dhoofiyey, waad aragtaan 20 daqiiq waxa weeyaan 20 baan haystaa. kiish $5 buu joogaa, waa 100,000 beentaasi ugu fadhidaa. halkan selling price waxa lagu soo dhoofiyo, laakiin soo dhoofin kartaa, laakiin si inagu alaabta qiimaha nagala fadhido bay doonayaan soo dhoofsano aynu ku soo iibsanay. save and close baan leenahay. 3 item bay save gareeyay buu ku leeyahay, waa okay waan ogahay 3 item save gareeyaan. waa iska xidhayaa, balance sheet-ka ku noqonayaa. balance sheet-ki markaan tago waxa weeyaan waad aragtaan 408 inventory-ga ahaa waa taa soo gashay meesha, halkaasay ka muuqataa. weli waxaa inoo harsan customers-ki baan soo dhoofsanaynaa. halkeena hore inagoo joogna customer center-keeni ayaynu waan xidhaynaa. waa halka laga soo gelaya, waa aniga markaa inoo sheegay, waa halkaas customers. markaa customers-ka aad ka soo gasho excel-ka baad ku noqonaysaa paste from. iminkana waxaad soo paste garaysanaysaa, iminka waxaan soo paste garaysanayaa customerski waxaan doonayaa gebigooda customerska aan soo qortay, waxaan soo qortay dadka magacyadoodii iyo lacagtii lagu lahaa baan soo qortay. markaas halkaasaad highlight-ka iska reebaysaa, highlight-kan halkaasaad double click iska siinaysaa oo ka haraya. intaan isoo paste gareeya waa dadka lacagta aan ku leeyahay magacyadoodii iyo lacagtii, iyagana soo copy garaysanayaa. waa 2 column, waa customer name iyo balance ma soo qaatay. marka waa inaan waxaan iska bedelaa, waa in waxaan first name iyo company name iyo master iyo mrs wuxuu yahay iyo first name iyo last name iyo waxaas uma baahni inaan intaa qofka u taxo dhan. marka name-ka ii daaya, inta kale iska qoraya remove farmaya, iska wada remove garaynayaa. waxaan sameynaya customer balance-ga soo qaadanayaa. 2 column baan u baahanay inaan u deysto meesha, halkaasaan kusoo paste garaynaya columns-ka. iyagana waa save gareeyay, iyaguna waa 6 waa isku save. waxaan doonayaa inaan vendors-ka soo copy garaysto, halkaas baan vendors-ka doonanayaa. iyagana vendor-ka magaciisa iyo balance-giisa baan diyaarsaday, waxaan uma baahni address-yadii, waxaan uma baahni iska tuuraysaan. customer balance-ga kusoo daraysaan, add baad inaan markaad xaggan ka tegayso intaad highlight garayso ayaad add oraysaa, dadkan dhinac buu soo gelaya. waayahay customers-kan halkan baan kasoo paste garaysanaynaa. kan double click si waxa naga hadho. customers-kana vendors-kana waa kuwan baan leeyahay, vendors-kana halkan kasoo copy garee, vendors-kana halkan kasoo copy garee, vendors-kana halkan kasoo copy gareeyo. allahumma salli ala sayyidina maxamed. halkan baan keenayaa, waxa weeyaan iyagana waan ku paste garaynayaa. okay baan leeyahay, waan xidhayaa. markaan xidho already waxay igu hadhay ma jiraan. kan waan qaaday, kana waan soo qaaday, kana waan soo qaaday, kana waan investment-ka ugu sameeyey. halkaas okay baan leeyahay. okay markaan waxaan iska xidhayaa. waad aragtaa markiiba customers-ki list-kooda way soo galeen. vendor list halkaad ka eegaysaa, halkan baad ka eegaysaa vendor list-kana waa kuwan iyagana vendors-ki list-kooda way soo galeen. marka intaasi ay intaa tahay balance sheet-ka haddaan eego shirkadda waxa weeyaan balance sheet-ka iyo shirkadda waa kan. balance sheet-ki shirkadda waad aragtaan. inventory waa kaa, vendors-ka soo dhufay waa kuwaas oo soo galeen, halkaas soo galeen. halkaa waxaa soo galay cash on hand baa soo galay oo cashka soo galay. markaas waxaad aragtaan halkaas waxaa la socda, halkaas waxaad aragtaan account markaas hoose ah net income. net income muxuu keenay? net income waxba lama iibinin, waxa la iibiyay ma jirto. marka waa khalad inuu net income keeno.
markaa net income qaab loo saaraa jirta. waxaa loo saarayaa waxaad tegaysaa chart of account baad tegaysaa. chart of account markaad tagtid waxaad dul geynaysaa cursor-ka. horta waxaad eegaysaa profit and loss-ka. profit and loss-ka waxaad ka arkaysaa markaad aad tagtid profit and loss markaad tagto waxaad arkaysaa laba account oo ah uncategorized income iyo uncategorized expense. uncategorized income-ka wuxuu ka dhigay account receivable-kii dadkii aan deynta ku lahayn soo dheefisinay account buu bixiyay khalada ayuu siinayaa oo la dhahaa uncategorized income. account-ka kale ee expense-ga wuxuu siinayaa uncategorized expense oo isagana account ka dhigay. markaas wuxuu leeyahay intaas oo income ku soo galay, intaasna waa expense ka baxay, waan kala jaray, intaasaa net income-ka ah. waxa la wax transaction oo dhacay la iibinay ma jirto. marka labada account si loo zero gareeyo ay warqadan profit and loss ay warqad u noqoto zero ah oo cadaan ah ila xooba ma u dhicin xooba transaction revenue ma soo gelinay account-nadaas loo zero gareynayo. waxa weeyaan tirada marka hore qoranaysa ku jira account-ka uncategorized income-ka waxa ku jira 763. account-ka uncategorized expense waxa ku jira 460. iska soo meemaanays garay halkan baa marka la doonayo in account-nada laga saaro waxaa lagu soo xidhayaa account-nada waxaa lagu soo xidhayaa chart of account baa la tegayaa. marka chart of account la tago halka ay ku qoran tahay open balance la dul tegaya. open balance markaad dul tagto waxaad tegaysaa halka ku qoran tahay report baad tegaysaa. waxaad leeyahay activity baad tegaysaa. use registration baad ku dhufanaysaa. use registration markaad ku dhufato waxa weeyaan halkan waxaad dooranaysaa account-nadii mid ka mid ah dooranaysaa uncategorized income baan dooranaya. halkaa waa decrease iyo increase. decrease iyo increase meeshu ka yaraanaya iyo dhinacu ka badanayo. waayahay account-kan waxaad ogtahay inuu yahay account income ah. income-ku xaguu ka kordhaa iyo xaguu ka bartaa ee isweydiinaysa. markaas dhinacan increase-ka ah ee dhinacna waa decrease oo dhinac laga yaraysa. dhinacaas increase-ka ah lacagtii ku qorneyd ayaad ku qoraysaa. lacagtii inagu jirtay profit and loss-ka khaladka ahayd ayaan halkaa kasoo qoranaynaa. waa weeyaan 763. halkaa marka waxaan gelinayaa inaan waxaan doonayaa inaan yareeyaan doonayaa decrease inaan account-kaas zero gareeyo ayaan doonayaa. markaas halkaas ku qoray 763 ayaan ku qorayaa. marka waxaan leeyahay 763 record baan leeyahay. halka hadana waxaan ka dooranayaa account-kii kale asna uncategorized expense-ga 460 ma ku jirasna decrease baan leeyahay. 460 markaan ku taabto waxa weeye asna okay. haddii aynu hadaba xidhna daaqadan waad aragtaan way zero gareyn. labadii account ba way zero gareynay. waxa allaala wax inoo soo galay ma jiraan meesha waa zero. dan all nahno waxa weeye waa zero. labada account meesha ka saarnay. profit and loss-ka inaan ku noqono. profit and loss-ka aan tagno. profit and loss-ka markaan tagno waxa weeyaan waad aragtaan labada account waa zero. marka u dhowto marka wax iibino caadi automatically way soo galayaan in wax iibino ama habeen shay ku iibinayna ama hada marka lagu iibinayo shay halkan dhugaas ka tagaysa creating force. halkaa qof baa ka dooranaysaa dadkaas mid wax ka iibinayna caasha caligaas ka iibinayna. halkaas template baan ka doorta. template-ka ugu fiican marka ay ku qoran tahay professional marka qoran tahay item-kii ka doorta. item-kan ka price baan dooranay. price dooranay quantity-ga hal xabeen iibinayna laba xabeen iibinayna. xabadii waxaanu siinay $20. waxaanu siinay $20. okay waan leenahay ninkaas aan ka iibinay ama aan ka iibinay Stefan Cruz. waxaanu iibinaynaa qof kale doono asna waxa weeyaan qofkaas waxaanu kaga iibinay ama waxaanu kaga iibinay profit and loss-ka inaan tagno. profit and loss-ka markaan tagno waad aragtaan 40kaas account-ka waa account-kan ku xidhanaa. account service income sales baa ku xidhaa. sales revenue waa tabaan la iska xidhaa laakiin account income ma ku xidhanay. $40 ayay noqotay lacagtii la iibiyay. lacagtii la faheedii ayuu naga jiray. price-ku $20 buu nagu joogay inaguna $40 bay siinay. markaas $20 ayaa ah profit. expense waxaas ma jiraan. expense-ga marka ku darayso expense-gu wuu ka sii jarayaa. waxa weeyaan haddaan tagno enter bills haddaan tagno oo aynu halkaa ka doorano qof lacag inagu leh kaasaaba kasoo qaad warsamahaasi wuxuu haystaa meel samaysa ama cilmi yarahaas meel light ka samayso haystaa utility inagu leeyahay ama utility account expense ma halkan ka dooranayna account-nada interest baa rent expense rent baa inagu leeyahay ninkan guriga kaga jirno $50 rent baa inagu leeyahay. $50 saas inagu record gareynaa. profit and loss-keena way ka muuqanaysaa. profit and loss-keena ama minus soo saaray ama plus. profit and loss-keena way ka muuqanaysaa way saameynaysaa. waxaan sameynaynaa profit and loss-keena tagayna waad aragtaan. gross profit macnaheedu waxa weeyaan alaabtan weli lagama jiro expense-ga.
waxaa la kala jaray cost price iyo selling price kun baa la kala jaray marka expense weli lagama jarin marka expense $50 buu noqday marka minus waxaynu khasaarnay $30 baan khasaarnay 20 baynu haysanay markaynu bariiska iibinay $20 baynu haysanay faa'iidada 20 expense baa konton noqday minus baanu ku yeeshay macnaheedu weeyaan waxa weyn waa khasaara dhacay halkaas waa intaas markaad doonaysid qof customer inaad statementkiisa u print garayso statement baad tegaysaa imka statement tagto halkaa bilaha aad ka print garaynaysaa dooranaysaa haddaad bil 5 lagu jiro wax kale aad ilaalinayso waxaad ilaalinaysaa sagaalaad ama tobnaad koodeedii ilaa 19keedii ama 30keedii baad ilaalinaysaa intaasaan doonayaa wixii intaa ka dhaxeeyay halkaas waxay August bay ku dhacday tobnaad ka dhig tobnaad koodeedii ilaa 30keedii bishaas u doonaya warbixintiisa qofkaasi one customer baad dul saaraysaa customerska kaas mid ka dooranaysaa waxaad dooranaysaa kaasaad dooranaysaa customerskaas dooranaysaa show baad dooranaysaa invoices haddii kale ku tusimaayo haddaad showda ilowdo aad saad right preview waxaa ku tusimaayo intaas uu ku tusaya totalaas uu ku tusaya lacagta ku tusaya laakiinse markaad tiraahdo show markaad tiraahdo waxaa laga yaabaa inuu wixii uu sheegay qofku ku qaatay ku tuso oo dhaha bris buu qaatay laba xabo $20 buu xabada aad ka siisay markaas $40 buu tegay oo halkaas uu saa ku tuso ayaa dhici karta markaas waxa weeye halkaas britain waad ka oranaysaa markaad britain tiraahid halkaas saran qofka customerka waxa weeyaan tu kuma qorna qaabka lagu qoro waxa weeye casharadina hore aan ku soo aragnay tuqda waxa weeyaan qofka marka doonayso tuqda inaad qorto oo qofka customerka aad tigaysa marka dul tagto double click baad siinaysaa double click markaad siiso intaas aad soo copy garaysaa markaad soo copy garayso halkaas biilkan ku paste garaysaa markaad ku paste garayso okay baad leedahay iminka haddaynu gabadha ku noqono caasha la yiraahdo one customer nahno caasha waxa weeyaan magacii xagga sare isku soo qorayo automatic wada arkaysa magacii markaas ku soo qorayo magaca ku soo bastirin halkaas waligeena saas uu kugu haysanaya computerka adiga ka remove kareeyay mooyee halkaas ka soo qoraya intaas waa inta halkaas sare waxaan niri toolbar baa la toolbar kaas waa la dheeli gareeyaa marka la dheeli gareeyaa calaamad baa aragtay xagga ujeeda calaamada haddaan ku dhufano waxaa soo baxaysa customize icon bar baa soo baxaysa markaas waa iska dheeli garan kartaa wax meesha ku jira way soconayaan waad arkaysaan saasaad u dheeli garan kartaa waxaas oo dhan marka okay baad samaysaa waxaad doontaa soo dhawaysanaysaa adigu aad meesha doontid aad keensato ayaad soo dhawaysanaysaa aad soo dhawaysanaysaa waxaad soo dhawaysanaysaa marka hore meeshaad furaysaa meesha doonaysa inaad soo dhawaysato aad furaysaa waxaad doonaysaa inaan balance sheetka aan fog aan halkaa ka tegayo inaan balance sheetka soo dhawaystaan doonaya balance sheetka marka hore furaysaa markaad furto asagoo saa kugu furan baad waxaad tegaysaa halkay ku qoran tahay allahumma salli ala sayyidina maxamed halkay ku qoran tahay baad tegaysaa favorite favorite-ka markaad tagtid customize baad raacaysaa markaad customize tiraahid okay baad leedahay kan waad ka xidhaysaa maya maan dooran weli aan ku noqdo waxaad tegaysaa accountant balance sheet baad tegaysaa balance sheet saa kugu furan ayaad waxaad tagtay halkaasaad tagtay halkaa markaad tagto waxaad tegaysaa list baad tegaysaa waxaad tegaysaa view baad tegaysaa view markaad tagto waxaad oranaysaa add balance sheet icon bar balance sheet kan ii furan icon bar ku tar waad ku dhufanaysaa okay baad leedahay waa kaas icon bar ka bixi waad soo dhawaysid waxaad doonaysaa invoice-kaas maalin kasta aad qoraysid ama aad invoice-ka aad halkaa ka tegaysid aad leedahay customer ama create invoice-ka aad ka tegaysid inaad soo dhawaysid waad furaysaa marka hore markaad furto isagoo furan baad view tegaysaa markaad view tagtid add baad oranaysaa add markaad tirahdid okay baad leedahay asnaakaas kaa soo baxay maalin kasta halkan baad ka furaysaa markaad qof doonaysid inaad diin siiso receptiyada profit and loss-ka customer-ka waxa baa kaas ka soo dhawaysan kartaa waad keeni kartaa artistmentiga waxaa weeyaan casharkan waxaan ku yara daraynaa sida loo artist gareeyo quantity oo halkaas oo ku yaala bris state baa ku yaala briskaas oo kale halkan baad ka dhaweynaysaa daqiiqda 20 xaba ku taala sokorta 26 waxaad ogaatay sokorta ay ku taala 26ka xabo inay 26 ahayn ay 24 tahay waxa weeyaan adjustment baad tegaysaa waxaad halkaas tegaysaa inventory activity markaad tagto waxaad ku dhafaysaa adjust quantity adjust kare halkaa find baad tegaysaa select item sonkorta baad dooranaysaa markaad sonkorta doorto ka tagtaa taaraysaa tagta markaad saato add baad oranaysaa add markaad tirahdid halkaas inta saxda aad soo aragtay baad ku qoranaysaa 20 baa ay yaala 6daas waa iska false okay baad leedahay account ku weydiinaya account-ka inventory baad ka doonaysaa inventory asset account-kaas igu sameeyo baad oranaysaa inventory-ga waxa weeyaan oo save garanaysaa haddaynu item list-ka tagno waxa weeyaan 20 kun baa soo galay 6dii waa iska tuurnay halkaas laga soo saxaa
waxa weeyaan halkan shaashada fenderka waa kaga ku yaala fender liski fender centerka waa kaga ku yaala fender centerka markaad ku dhufatid fender centerka bas furmaya inventory centerka waa kan employment centerka waa kan wixii oo dhan halkaas ay ku wada yaalaan aad ka samayn kartaa intaas ayaynu maanta doonaynaa casharkeena inaynu ku eegno wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas ayaynu ku jooji